بسم الله الرحمن الرحيم قيارتا قيمها بدن ميل walba joogtaan soo dhawaada haween wanaagsan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan habeen wanaagsan caawa waxaan ku suganahay isbitaalka uu ku jiro walaalkeen Cabdilxamiid Karazai oo 2 cisho ka hor la keenay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga sidaad ogtihiin Karazai wuxuu ahaa cameraman iyo farsamayaqaan ka tirsan TV-ga Universal xaruntiisii magaalada Muqdisho waxa uuna runtii uu ku dhaawacmay xare ayuu caafimaadkiisii sidii hore waa uu dhamaa dhaqaatiirtu ayaa haatan la tacaalaysa dhaawacaasi oo lagu xiray gaarigiisa wuxuu saameyn ku yeeshay dhabarka dambe jirkiisa in waxyaalo ay ka soo gaarto ilaa iyo sinta uu dhaawaca uu saameeyay laakiin dhaqaatiirta ayaa waxay sheegeen in maalinta berita hadduu rabbi idmo uu qaliinkiisii ugu horeeyay uu geli doono waxayna ama markay qiimeeyeen dhaawaciisa waxay tilmaameen in uu u baahan yahay ilaa iyo 3 qaliin ama 3 qaliin inuu geli doono oo Karazai oo dhaawacaasi ka soo gaaray qaraxaasi Muqdisho ka dhacay marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaad ogtihiin sida ama qof walba Soomaaliya markay dhibaato soo gaarto waajibaadka ugu horeeya ee saaran ayaa waxa uu yahay in aan ku soo kaalmayno ducada inaan ku soo kaalmayno inuu Ilaahay uu u fududeeyo qaliinkaasi uu maalinta berita uu galayo waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid Ilaahay u fududeeyo dhaawacaasi isla markaana runtii aan dhihi karno nin aan waxba galabsan ayuu ahaa iskiis isaga shaqaysanayay dhibaatada soo gaartayna waxay ka mid tahay dhibaatada lagu hayo ummadda Soomaaliyeed oo idil iyo dalka guud ahaan Mr. Karazai runtii oo ah qof shacabka Soomaaliyeed iyo waliba bahda Universal qaali ku ah ayaan caawa waxaan noo soo rogashanan soo booqanaysa ujeedaan isbitaalka ayuu ku jiraa halkan ayuu jiifaa maalinta beritana qaliinkaasi ayuu geli doonaa hadduu rabbi idmo waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo mid guuleysta ama qaliinkaasi mid guuleysta inuu rabbi uu ka dhigo si allan soconana inkastoo aysan wax lafa ama jirkiisii ama lafa aysan jabin haddana inta badan dhaqaatiirtu waxay sheegeen in ay la tacaali doonaan dhaawaciisa ay la tacaali doonaan waxaa runtii la dhihi karaa inta badan dhaawaciisa waxaa la soo tacaalay isbitaalada Muqdisho ayaa la soo tacaalay marka inta hartayna in ay dhaqaatiirtan isbitaalkan ay la tacaali doonaan muddo ku siman 40 cisho ayuu isbitaalka ku jiri doonaa 40kaas cishana 3 qaliin ayuu mari doonaa qaliinkiisa ugu horeeyay bari ayuu galayaa saacada 12 xilliga geeska Afrika ayuu qaliinkiisa ugu horeeyay gali doonaa wixii markaas ka dambeeyana waxa ay noqon doontaa mid xaaladiisa marba dambaysa la ogaado ay noqon doontaa halkan waxa la jooga Mustafa ayaa la jooga oo ah Karazai walaalkiisa oo Soomaaliya ka soo raacay runtii asagana la dhihi karo isbitaalka ayuu ku heliyaa isbitaalka ayuu la joogaa wuxuu u baahan yahay oo la qabtaa wixii shaqo markaas loo baahdo ayuu u qabtaa halkan ayuu ku daryeelaa ama halkan ayuu runtii ayuu la joogaa Cabdilxamiid sida la socotaan waa shakhsi haatan kaligiis ayaa kaca suuliga taga ka soo noqda halkan sariirtiisa ku soo noqda alxamdulillah sidii la rabay qolooyinka falkan geystay sidii la rabay ma aysan u noqon marka isaga ayaa qolkii suuliga taga ka soo baxa kadibna la dhihi karaaba xaaladiisa kale waa okay wax faleebaha ku socota malaha faleebooyinka oo jirkiisii iyo dhiiggiisii dib loogu soo celina dhammaan waa uu qaatay haatanna sidii horena waa uu dhamaa waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socdana ay xaaladiisa ay soo wanaagsanaa doonto ayaan rajaynaynaa Karazai murda saad marka xaaladiisa alxamdulillah sidii hore waa uu dhamaa marka waxaan rajaynaynaa in uu dadka Soomaaliyeed ay u soo duceeyaan laba kalmane inay u soo duceyn doonaan haatan waxa soo booqatay ubax ayaa soo booqatay oo isbitaalka soo booqatay hay ubax maxaa leedahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يا أصحاب فيسبوك ودن
alxamdulilah maanta waxaan soo salaanay waan ugu soo boqonay isbitaalka insha allah buru qalin galaya usoo duceeya idinkana allah idin xafido asagana allah noo caafiyo intii dhibana dhibka allah ka kor qaado waa idin salaamaya kulligiin mar labaad mar saddexaad guri gabadhnimo idin rajeena insha allah hay mustafa maxaa ku diraysaa سوداء ليلى إن شاء الله على الكريم يا تحميد كرزاء سوداء ليلى in loo soo duceeyo dalbanaysaa إن شاء الله allah waa maqlaan kulley waxaan rajaynaynaa in aad usoo duceyn doontaan ducada inaad kusoo kaalmaysaan ayaan rajaynaynaa insha allah walaalkeena berito ayuu qaliin gelayaa qaliinkiisa ugu horeeyay beri ayuu geli doonaa marka inuu ilaahay ka dhigo mid guuleysta inuu ilaahay ka dhigaan rajaynaynaa marka ducada kusoo kaalmeeya ha loo soo duceeyo xilliga salaada markaad tukataan usoo duceeyo inuu ilaahay u fududeeyo qaliinkiisna inuu ilaahay uu ka dhigo mid guuleysta dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay xanuunsanna inuu ilaahay caafimaad taam ah uu siiyo isagoo beri qaliin gelayna qaliinkaasi inuu ilaahay u fududay marka waxaan rajaynaynaa faatixada inaad usoo martaan inaad u duceysaan inuu rabbi caafimaad siiyo kolley annagana waajibaadkana saaran ayaan gudan doonaa maadaama aan la joogno inaan ka warhayno xaaladiisa hadba meesha ay marayso intaa in loo soo duceeyo caawa 6 sac ayaa ugu dambeysa cuntada 6 sac wixii ka dambeeya wax afkiisa ma saari doono kadib qaliinkii kadib ayuu wixii cunaa markaas saari doono marka barnaamijkan kooban intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad usoo duceyn doontaan inta ka horeysana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha guuleysato soomaaliya cadowgeeda ha jabo soomaaliya madaxeeda kor allah ka dhigo soomaaliya mar walbana ha noqoto dad mar walba iscaawiya isku kaalmeeya sida adduunka oo dhan ay soomaaliya ay kaga gedisan tahay waa waxa keliya ee adduunyadu ay soomaalidu ay kaga gedisan waxay tahay in iscaawiyaan istaageeraan inay garab isiyaan sidoo kale waxaan leenahay ilaahay wixii xun iyo wixii shar wada iyo wixii dhibaato wada iyo wixii qabyaalad wadaba ilaahay hanaga xijaabo aamiin marka waxaan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono ama soomaaliya ay ka guuleysan doonto dhammaan cadowgeed oo dhan inay ka guul wixii cadow ku ah qarnimada soomaaliya wixii cadow ku ah oo dhan inaan ka guuleysan doono kuwa qabyaalada wadana inaan ka guuleysan doono insha allah dowladda cusub dadaalada ay wado iyo weliba meelaha ay gaartay iyo bilowgeedii iyo rajada ummadda soomaaliyeed cid walba hortaagana ama isku dayeysa inay niyad jabiso milyan intaasoo malaayiin oo soomaaliyeed oo rajo ku nool rajadooda ciddii jabinaysana waxaan leenahay ilaahay ha ka qabto guushaad guulna ma gaaraysaan meel xun ayaa idinku dambeysa صح taasaan been ahayn guri gabadhnimo aan rajeena insha allah kuwa qabyaalada wada maxaa leedahay ilaahay ha naga qabto ilaahay anaga qabto shartoodii sharkooda allah naga qabto kuwa wanaagga wadan maxaa leedahay ilaahay kor allah ka dhigo madaxoodii marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha guuleysato shacabka soomaaliyeed ha guuleystaan hooyooyinka soomaaliyeed ha guuleystaan aabayaasha soomaaliyeed ha guuleystaan gabdhaheeni soomaaliyeed oo sharafta leh ha guuleystaan wiilasheena soomaaliyeed oo sharafta leh ayagana ha guuleystaan madaxdayni ilaahay ha guuleeyo xilalka adag ee loo magacaabo ilaahay ha guuleeyo wasiirada la magacaabay shaqadooda ilaahay ha u fududeeyo baarlamaanka soomaaliyeedna ilaahay ayagana kheyr allaha sii sida xukuumadda u ansixiyeen shaqooyinka kale ee hortaaganna ilaahay ha u fududeeyo cadowga soomaaliyeed meel walba ha joogay hadday noqon lahaayeen soomaali oo cadowga u shaqeeya hadday noqon lahaayeen kuwa lacagaha social mediaha propagandada iyo xumaanta iyo qabyaalada iyo waxyaalaha xun la taagan ilaahay ayagana waxaan rajaynaynaa inuu xaqa inuu ilaahay tusiyaan rajaynaynaa mar walba sida ay ciidamada soomaaliyeed ay u hortaagan yihiin cadowga anagana waxaan u hortaagannahay kuwa social mediaha xumaanta ka wada ay anagana hortaagannahay marka wax walba isku dayaan inay shacabka soomaaliyeed ay ku niyad jabiyaan waxaan leenahay maxay yiraahdeen farmaajo ay dhaheen sujuudaya intay sawir beena ay bedeleen yaa yiri kuwa facebook ku jira madaxweynuhu salaanta qaadanaya wax la tusaay photoshop sameeyeen photoshopka wax walba photoshop ana waa garan karnaa media anaga ku jirna wixii photoshop ana waan naqanaa hadda sawir isku soo dhajin lahaydeen iyo haddii oo xildhibaan soo degayo aad dhihi lahaydeen baco wataa iyo haddaad dhihi lahaydeen madaxweyne oo brotocoolka ilaalinayo ummadda soomaaliyeed oo dhan haybadeedii ilaalinayo haddaad dhihi lahaydeen wuu sujuuday sidaad horey been ooga sheegteen madaxweyne xasan sheekh marka waxaan leenahay waa idin hortaagannahay xumaanta aa wadaanna
meel kuma gaaraysaan. Soomaali sharaf ayay leedahay, Soomaali cizi iyo karaame leedahay. Shilimaad xun haddaad ku doorsanaysaan qarnimada iyo weliba dhiiggiina Soomaalinimo, waxaan leenahay waxaa taagan rag u heelan inay cadowga Soomaaliyeed mar walba ay hor istaagaan. aad iyo aad farmaajo iyo khayrna waxaan leeyahay ilaahay iyo jawaare ilaahay waxaan leeyahay kuwa khayrka isugu yimaada oo aan la isku dirin oo cadow aan dhexgelin Allah ka dhigo, cadowga iyo xumaanta kuwa la wareegan Allah naga qabto. aad iyo aad aamin 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 saasaan leenahay. idinkana waxaan idin rajaynayaa caada qaatayaal qoraalo yar meel kusoo qorqorayo inaadan u joojinin, inaadan dheg jalaq u siin. wixii wanaaga ahna wixii oo run ahna runa laga sheegaya, wixii been ahna been waan beeninaynaa oo waxaan leenahay waxaas wax jira maaha. wixii run ahna markaasi media taagan oo media xaqiiq ku salaysan Soomaaliya ka shaqeysa ayaga wanaaga ku sugeena. wixii xumaan ahna oo social media ku soo aruuray oo meelaha joojoogan oo qolalka isaga xiran oo wixii rabaan inay soo qoraan cid ka yeelayso ma jirto. waxaan leenahay dadkaasi wanaaga Allah tusiyo, xaqa Allah tusiyo. waxaan leenahay Soomaaliya burburkii kadib 1991kii ilaa iyo xiliyadii adkaa ay dhibaato intaas ugu filan dadka Soomaaliyeed. dhibaato halka intaas ugu filan. Soomaaliya uma baahna niyad jab, uma baahna propaganda, uma baahna caada qaate, uma baahna qof niyad jabinayo. hooyo Soomaaliyeed oo abaar ku jirta oo dhibaateysan qof niyad dilayo Soomaaliya uma baahna. Soomaaliya waxay u baahan tahay team Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro wiilal iyo gabdho leh oo wadankaas u shaqeynaya, u dhimanaya, difaacaya ayay u baahan tahay. marka propaganda looma baahna. marka wixii propaganda Ilaahay naga fogeeyo, wixii xumaan ahna Ilaahay ama xumaanta wadana Ilaahay naga xijaabo shartooda iyo shaydaankooda. marka waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono. yaan dheg jalaq loo siinin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidamada ku jirta iyo tiimka kale oo dhan waxaan leenahay guuleysta. waxaan kaloo guul aan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo social media isticmaalayso wanaaga ka shaqeynaysa guuleysta. kuwa xumaanta wadana Ilaahay ha soo hanuuniyo xaqa Allah tusaan leenahay. sidoo kale ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa tiimka daryeel bulsho ayaan u mahadcelinayaa runtii oo barnaamijyo wax ku ool ah maanta ka fuliyay deegaanka Garasbaaley ee degmada Kaxda. halkaasoo runtii daaweyn ay ka sameeyeen, daaweyn lacag la'aan ah oo bukaanada dadka xanuunsan gobolada ka yimid ee Soomaaliya halkaas ku daaweeyay ayaan u mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa tiimkii kale oo bil ka hor Baydhabo iyo deegaano ka tirsan barnaamij caafimaad iyo gargaar intaba ka soo fuliyay. waxaan sidoo kale aan u mahadcelinaynaa tiimkii kale oo daryeel ah ayagana tagay deegaano ka tirsan Somaliland oo ilaa iyo Sool tagay ilaa iyo gobolo kale oo aad u fara badan tagay. waxaan kale u mahadcelinayaa tiimka kale ee daryeel bulsho ayagana tagay gobolka Shabeellada Dhexe deegaano ka tirsan. kuwa haatan magaalada Muqdisho banaankeeda gargaarka ka wado dhan gudoomiyaha daryeel bulsho Cabdiraxmaan Geelle iyo waliba tiimkiisa oo dhan waxaan leenahay guuleysta. ballanqaadkii ummadda Soomaaliyeed lacagihii nagu soo aamineen sidee tahay ayaad u fulinaysaan. waxaan rajaynaynaa wixii kale ee harayna inaad sidii loogu talagalay inaad u fulisaan ayaan rajayn doonaa. dhalinyaradaas ama dadkaasaan u baahannahay oo wadankooda wax ku bartay, dagaalo badan wadanku ayagoo ka dhacay joogay, wax ku bartay, jaamacada ka baxay, weligood wadanka aan ka bixin, haddana sidaas aad arkaysaan dadka ugu shaqeynayo. daryeel bulsho maxaad leedahay? daryeel bulsho waa u mahadcelinayaa maasha Allah tabaaraka Allah. waxaan leeyahay guuleysta weligiin gadaal ha marina. shaqadiinana aad baan ula dhacay, mar walbana waa idin arkaa. waxaan idin leeyahay guuleysta. ilaahayna ha idin barakeeyo, ilaahayna ha idin xafido, idinkoo kalena Allah ha badiyo. kulligiin waa idin salaamayaa saa u dhan tihiin daryeel bulsho. daryeel bulsho tiimka daryeel bulsho dad badan ku xiran oo Soomaaliyeed oo dhalinyarada u badan iyo tiimka oo asxaabta kale Facebooka wanaagaas marka aan ka wada shaqeyno asxaabay habeen wanaagsan. saaxiibkeeni Karazay waa u jeedaan halkan oo jiifaa kulay inaad u soo duceysaan bariyo qaliin galaya. qaliinkiisa ugu horeeyay ayuu barita galaya insha Allah saacada markay tahay 12 duhurnimo inaad usoo duceysaan. salaada markaad tukataan laba rakac suno markaad tukataan faatixada inaad usoo martaan usoo duceysaan inuu Ilaahay caafimaad siiyo. haatan caafimaadkiisa sida hore waa uu dhaamaa. wax badan ayaa u haray. qaliinkiisa koowaad bariyo galaya, 3 qaliin ayaa u hartay. marka insha Allah marka inaad usoo duceysaan rajaynayna. inta ka horeysan waxaan idin leenahay alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. guuleysta Soomaaliya ha noolaato.